بسم الله. kartaa hadaan right click gray ayaad ka dhigi kartaa hadba kii markaas aad jeceshahay ayaad ka dhigi kartaa. Ana markaa waan iska yeeshanayaa kaygii. Haddii aan kaygii iska yeeshado defaultigaygii taasi wata haddii waxaan kala idin tusayaa sida daaqada iyo sayska meelaha cabirada laga soo dooranayo. Kow inaan nidhaahno new ma control iyo n aynu qabano sida shortcutka kadibna aynu neo nidhaahno oo inoo soo dhiga sidan. Halkana aynu ka doorano cabirkii iyo wixii aan doonay. Halkan oo kale halkan ugu soo sarreysa waxaad gelinaysaa documentiga ama projectiga markaasi mashruuci aad markaasi shaqadiisa aad qabanaysay magaciisa ayaad gelinaysaa. Halkan oo kale waa widthkii waa ballacii, kana waa heightkii oo markaasi waa joogii. Halkana waa centimeter oo waxaad ka dooranaysaa waxaad markaasi doonayso centimeter baad doonaysaa inaad ka dhigato ama millimeter baad doonaysaa inaad ka dhigato. hadba kii aad doonaysaa in markaasi aad ka dhiganaysaa. taasina wata sidoo kale halkana waxa weeyaan waa orientationka portrait iyo landscape hadba kii aad ka dhigaysay inaad jiifiso markaasi waraaqada ama inay saasi u taagnaato. kaasi resolutionkii aad u isticmaalaysay markaa resolution kala duwan bay hadba leedahay oo loo isticmaalaya. iyadana taasi waa muhiim. halkan iyada waad ka bedeli kartaa oo kaa doonaysa ayaad ka dhigaysaa laakiin inta badan kaas ayaa la isticmaalaa.
RGB-yadu waxa weeyaan R2 waa red iyo green iyo blue mar shaygii markaas in la daabacayo haddii la daabacayo waxaad ka dhigaysaa CMYK haddii meelaha media lagu soo baahinayana waxaad ka dhigaysaa RGB color ayaad ka dhigaysaa kaas waa ka halkan iyada saas ayaad u daynaysaa marka halkan haddii aad doonayso oo kale A4 oo kale haddii aad doonayso inaad doorato inaad markaasi aad ku qorto tiradii cabirkii markaasi A4 haddii aad hayso 210 oo kale A4 weeyaan halkan heightkeeda haddaan ka dhigno 297 marka A4 ayaa na soo baxaysa marka haddii soo yara weyneyno oo kale haddii aad doonayso markaasi inaad bedesho wajahadan markaasi daaqadan markaad saa usoo furisid meelahan inaad bedesho oo kale wajahadan oo kale waxaad u bedeli kartaa inaad tagto edit kadibna aad tagto preference kadibna general aad kasii tagto ama control iyo k sira shortcut aad qabato wuu kusoo kacaya inuu sidaa kugu soo kaco markii saa kugu soo kacdo halka aad tigta saartid oo use legacy aad tirahdid new document interface aad tigta saartid ama siro kooban inaad tirahdid control iyo k marka tirahdid kugu soo kacdo kadibna aad tigta saartid okay aad tirahdid taasi waa habka kale aad markaasi ku bedeli karto daaqada plan ku noqona file tag kadibna new de okay wanaga bedelay haddii halkan iyadana aan sharaxno halkan waa namekii waa projectigaaga ama documentigaaga magacaada la bixi lahayd haddaad board oo kale aad diyaarinaysid board ayaad iska qoranaysaa hadba wixii aad doonaysid ayaad halkan ku qoraysaa customka iyadana waxaad halkan customka wuxuu si kala baxayaa groups buu kala noqonayaa markaas customka ilaa wuxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa groupkaas koowaad labaad iyo saddexaad iyo afraad ilaa shanaad groupadaas dhowr group ayuu markaas noqonayaa US paper markaasi waraaq markaasi Mareykanka kaliya laga isticmaalo ayaad ka dhigan kartaa marka waxaad ka dhigan kartaa international paper oo waraaqda caalamiga ah iyo la isla yaqaano A4 weeyaan oo marka international paper ayaad dooran kartaa ama siro fudud intood kan marka hore aad iska doorataba ayaad halkan waxaad ka dhigi kartaa cabirkii waraaqda A4 297 heightkeedana 210 oo kale sidaas ayay usoo bixi kartaa markaana haddii aanu kusii socono markaa resolutionkeeda 300 ayaad isugu dayn kartaa halkana waad ka bedeli kartaa millimeter iyo hadba uu yahay haddaad millimeter doonayso millimeter ayaad ka dhigaysaa inta badan waxaa loogu isticmaal badan yahay waa millimeter centimeter inches iyo pixels marka halkan ayaad ka bedelaysaa hadba kii aad doonayso international paper oo kale haddii aanu geyno default photoshop isagu waa kii markii aad soo dejisay uu ku yimi oo default waa kiisa caadiga ee software-kan uu leeyahay international paper haddii aan doorano RGB halkan ayaad ka dhigaysaa haddii aad daabacayso CMYK baad ka dhigaysaa haddii kalena RGB oo red iyo green iyo blue media aad kusoo baahinaysana RGB ayaad ka dhigaysaa kadibna waxaad leedahay okay sidoo kale interface-kan hore ee software-kan waxaad ku bedeli kartaa qaab kale waxaad leedahay edit cafwan kadibna waxaad leedahay preference kadibna waxaad leedahay interface markaad tiraahdo sidan ayuu kusoo dhigaya sidan markuu kusoo dhigo cadaan ayaad ka dhigi kartaa waxaad ka dhigi kartaa noocan aad ka dhigi kartaa kan gareyga baad ka dhigi kartaa black baad ka dhigi kartaa hadba kii aad jeceshay ayaad ka dhigi kartaa marka anigu haddii aan iskaga celiyo kaygii iskaga diisto halkan oo kale waxaad ka bedeli kartaa
halkan oo kale waxa iyaduna waxa weeyaan waa highlight colorka waa meeshan layerska ayaad colorkeeda bedeli kartaa layerska haddii aynu soo furano layerskeena waa kan marka halkan qufulku saaray halkan colorkan colorka ay qaadatay ayaan ka bedeli karaa oo blue baan ka dhigi karaa halkan black I hope inaad halkaa fahantay waxaan samayn karaa kale halkan waxaan ka bedeli karaa habka labaad ee aan ku bedeli karo markaasi meeshan blackay habka labaad aan ku bedeli karo waxa weeyaan inaan halkan soo furo default kadibna black oo kale aan ka dhigo I hope inaad fahantay halkaana marka kaygii aan iskaga heshto taas wataa iyadana halkan waan soo sheegnay inaad noocan oo kale habkanna waad ku bedeli kartaa inaad right click tira kadibna aad doorato kii aad doonayso medium baad dooran kartaa default baad tegi kartaa taasina wataa sidoo kale waxaan rabaa inaan idin sharaxo oo iyaduna ta ugu muhiimsana marka aad soo gelinayso sawir oo kale markaad soo gelinayso waxaad samaynaysaa file oo kale file ayaad tegaysaa kadibna waxaad ka dooranaysaa place markaad doorato sawirkii ayaad markaas halkan aad soo gelinaysaa broshuurka aan samaynay oo kale aan iska soo gelinay marka broshuurka haddii aan iska soo gelin saas ayaad sawirka soo gelin kartaa sawirka waad shaqada doontaa ayaad sawirka qaban kartaa control iyo T ayaad qaban kartaa si uu inoogu select gareysmo kadibna waad yaran kartaa waanad weynan kartaa move toolka ayaad tegi kartaa kadibna waad qaadi kartaa taasina wataa sidoo kale waxaan rabaa inaan tuso qaabka labaad ee sawirkaad kusoo gelin karto imanka iyadoo waxaan tusay waraaq sawir la dul keenayo oo lasoo dhex gelinayo waraaqdiina waa tan farta sawirkiina waa inaga soo gelin haddaba sawir keliya isaga ma soo gelin karaa waan soo gelin karaa waxaan samayn karaa waxaan karaa open baan leenahay kadibna waxaan leenahay sawirka inoo soo geli waa kan sawirkaas inoo soo galay keenii hore ma haddaba keenii hore waa kan dambe aynu soo gashanayno waa kan labadaba waa iska dhigi kartaa kana waa dhigi kartaa no ayaad leedahay ku save gareeyaa buu leeyahay maya waate waa iska dhigi kartaa okay taasina waa taa muhiimaddu waxa weeyaan haddaba sidee ayaa loo save garaysan karayaa inaad tiraahdo control shift iyo s control shift iyo s waa save kadibna aad save on your computer aad tiraahdo waad saa ku save garayso kadibna halkan waxaad ka bedelaysaa muhiimadda waa inaad ogaato bartaas waa inaad kan waad dooran kartaa kaasaa waxoogaa ugu wanaagsan yahay kaasaa ugu wanaagsan kaa dooro halkan magacaad doonayso ayaad ku qoranaysaa kan magacii markaasi aad doonayso ayaad ku qoranaysaa certificate ayaan ku qorayaa kadibna inter ayaan leeyahay kadibna qualitygiisa oo kale intaas ayaan u daynayaa 12 oo isagu sida saxda ah igu dooray kadibna waxaan leeyahay okay kaas waa ka I hope inaad ka faa'iiday casharkan fadlan channelka subscribe saar si aan usoo badin casharo noocan oo kale ah casharada aan soo gelin ka faa'iidayso wixii su'aalo markaasi aad u baahan tahayna qaybta commentiga noogu reeb. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.